burhaan cabdullaahi xaashi aad baad u mahadsan tahay adigay bahdaada garasho wadaag waan aaminsanahay barnaamijkan inuu yahay barnaamij wax badan ka bedelay galmudug iyo dhammaan deegaanada laga maqlo barnaamijkan runtii magac uu wato iyo saameynta uu leeyahay waa wax runtii aad loo mahadiyo wana runtii arin talaabo wanaagsan aan ku tilmaami karo barnaamijkan in guud ahaanba bulshada meel kastoo ay joogto la geeyo runtii isla hadda barnaamijkan awadaan qabanqaabadiisa oo idaacadaha aan aaminsanahay galmudug oo dhan in barnaamijkan la gaarsiiyey si bulshada meel kastoo ay joogto maqalka barnaamijkan la isugu keeno maadaama uu yahay barnaamij in badan oo ka mid ah bulshada waxyaabaha muhiimka u ah sida dib u heshiisiinteeda iyo horumarkeeda iyo nabadeeda iyo cimilada oo runtii ayadana door muhiim ah oo aan aaminsanahay marka loo eego bulshada in wax badan laga wacyigeliyo lafdhabar u ahaan dhihi karaa marka runtii barnaamijkan dhuusamareeb radio galguduud ka baxayana waxaan aaminsanahay in bulshada iyo deegaanada idaacaddaasi laga maqlo wax badan oo sida aan horey ugu ogeyn ugu baranay uu ka bedeli doono wax badan oo ku soo kordhin doono burhan barnaamijka marka ugu horeysa horta waxaan ku tilmaami karaa in uu yahay madal bulshada isku keenaysa oo dabcan dadka Soomaaliyeed waxa lagu yaqiinay dad inta badan arimaha haday ahaan lahayd markay ay jiraan ama khilaafaad ama wax kasta geed hoostiisa la iskugu imaan jiray marka waxa isleeyahay waa geedkii hoostiisa hadda dib loo casriyeeyo isagoo digital laga dhigo oo barnaamijkan dabcan dadka isku keenay wax badan ayuuna ka bedeli doonaa burhaanow bulshada aniga ka tala ahaan waxaan leeyahay barnaamijka horta sida uu ku socdo waa si wanaagsan dabcan maxaa yeelay dadka barnaamijka aad ku soo bandhigtaan oo aad ku wareysataan waa dad bulshada labeenteedii ah oo in badan oo ka mid ahna habka aad u qaada dhigtaan waa hab aan ku tilmaami karo inuu yahay hab la mahdiyay oo bulshada wax badan ku soo kordhinaya barnaamijka oo idaacadaha iyo social mediaha marka la eego platformyada kala duwan ee warbaahinta bulshada lafdhabartu ah ayuu ka baxaa marka waxaan leeyahay sidiisa ku soo wada qeybo kala duwan oo cusub ah oo markaasna waa idinka filanayna inaad markaas imaato sababtoo waxaan aad u tuhmayaa ragga adiga burhaan ahaan ugu horeysa barnaamijkan qabanqaabadiisa wada in ay wax badan curinayaan oo wax badan oo cusub ay soo kordhinayaan marka waxaan leeyahay barnaamijkan garasho wadaag in wax badan ka bedeli doono gayiga galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaan idin rajaynaynaa fikrado cusub iyo hal-abuur casri ah inaad ku soo kordhisaan oo qaybaha aragtiyada dhalinyarada iyo haweenka iyo culimada iyo dadka asdhihi karo bulshada waxay u yihiin lafdhabar la taaban karo aragtiyadoodu inay noqdaan meel ay ku soo bandhigaan oo booski geedka sida hore u sheegaba dadka garashadooda iyo waxa ay soo kordhinayaan waxay curinayaan lagu soo kordhiyo oo bulshada inta kale la wadaago marka aad baan idin bogaadinayaa